guddida nabadgelyada gobolka Gabiley oo maanta kulan ballaaran ku yeeshay xafiiska barasaabka gobolka ayaa amarro ka soo saaray gaadiidka nooca loo yaqaan bajaajta oo ka dhex shaqeysa gudaha Gabiley waxaana amarradani warbaahinta la wadaagay taliyaha qaybta gaashaanle sare Axmed Saciid Maxamed waxaana hadaladiisii kamid ahaa guddiga nabadgelyada gobolku wuxuu saakay u fariistay shir oo runtii xaalado badan ku eegay oo nabadgelyada gobolka khuseeya iyo sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka had iyo jeer soo noqnoqda marka runtii arrimo way kala muhiimsanaayeen waxaan 6 qodob aan akhrin doono ayaa guddiga nabadgelyadu ka soo saaray in lagu dhaqo gobolka haddii aanu nahay guddiga nabadgelyada gobolka Gabiley annagoo ka duulayna arrinta cabashada badan ka taagan tahay ee gaadiidka yaryar ee bajaajka waxaanu ka soo saarnay go'aan wax badan ka tari doona waana sidan hoos ku xusan in aanay habeenkii socon karin 10 iyo barka habeennimo wixii ka dambeeya waana mamnuuc inay socdaan 10 iyo barka wixii ka dambeeya 2 in 4 qof wax ka badan aanay qaadi karin 3 in sameecadaha iyo leerarka saa'idka aan la ogolayn waxa dhacday oo la caadaystay dhalinyaradani sameecado waaweyn oo maaragtay gaarigaba la eeg bajaajta oo kuwii loogu talagalay hoteelada iyo khudbadaha iyo rotationada ayaa la saarayaa reedna magaaladii waxaad meesha studio inuu dhex marayo 4 in aanay labada control ee galbeedka iyo bariga aanay dhaafi karin 5 in loo sameeyo card ama liisan ku meel gaar ah oo gobolka ku kooban inta uu soo baxayo liisanka rasmiga 6 inaanu wadi karin qof aan wadan liisanka ku meel gaarka sida ku meel gaarka temporary gobolka loogu sameeyay qofkii aan wadan ee lagu qabto isagoo bajaaj wada waxay noqonaysaa dambi ciqaabeed sidoo kale waxa kulankani maanta ay guddida nabadgelyadu yeesheen ka hadlay barasaabka iyo taliyaha maanta halkan waxa ku dhan guddidii nabadgelyada gobolka oo aanu maanta qaadanay shir aanu isugu nimid oo kaga wada hadlaynay iskana wareysanaynay arrimaha nabadgelyo ee ka taagan gobolka iyo xaaladiisa ayaanu aad iyo aad maanta shirka ballaaran u galnay qodobada nooga soo baxay waxa kamid ahaa qodobka bajaajta oo runtii kamid ah gaadiidka ka howlgala degmadan Gabiley iyo gobolka dhalinyarada wadana ay u mushkiladaysan yihiin dadweynaha iyo dadka raacana runtii ay dhib badan ku qabaan marka go'aamo baanu ka soo saarnay runtii aanu isla aad aan uga fikirnay oo runtii la isla eegay aan arkaysan oo dhami waxa weeyaan waa sameecado ay saareen gaadiidka bajaajta waxaan halkan fursadan oo ka faa'iideysanayaa aan fariin u dirayaa dhammaan milkiilayaasha gaadiidka bajaajta dhammaan wadayaasha gaadiidka bajaajta inay u hoggaansamaan habsami u socodka gaadiidka wadooyinkana ay ku maraan si nabadgelyo ah waxaan isla qaadanay inaanu qodobada ay noo soo jeedaan qaadano oo nidaamka saa ku wadno waynu ku mahadsanyahay Farxaan Cabdaaw Ciise Honkayval TV gobolka Gabiley